ninkee baa lahoo dhabarka loo saadhin hoyaalayey 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 hooye waa tahay daawadeel waxaan filayaa gabaygaasi inuu aad idiin taabtay runtina ahaa gabay dheer isla markaasina meelo fara badan iyo dhaliilo fara badan iyo dhibaatooyin badan ka hadlayay abwaan qaasin ama macalin qaasin bal waxaad nooga faalaysaa gabaygaani waxa uu soo taabtay ama uu soo jabaaxay carro aad u fara badan runtii erye waaweyn oo ay laftigooda turjuwaano u baahan oo in maaragtay dee la era bixiya u baahanna way ka buuxaan bal gabaygaa nooga warbixi runtii walaal horta gabay aad iyo aad u dheer weeye geeso badanna taabanaya dhinacyo badan runtiina wuxuu ka turjumayaa dhibaatooyinka Soomaalida haysata kulli waxay la tahay su'aalahaas iyo su'aalo badan oo furanna Soomaalida ka soo jawaabi doonta oo xagga su'aalaha Soomaalida u deenay ka soo jawaabaan cidda dhib ku haysta iyo cidda ka nasan laayiin ayaga ka warbixin doona laakiin waxay ka taabto gabay wuxuu aad iyo aad u taabanaya way hadda Soomaalida wadankii hore dadku ayaga isdeen jiray ayaga isdhici jiray waxaad maqlaysaa carruurtii baa la xadayaayo inta la dhoofiyo kaliyoodii baa lacag noqday waa la gadanayaa marka wuxuu yiri dhashaydii ninka qalanayay dhashaydii ninka qalanaya shilinka dhaafsiistay ee igala dhuumanayo suuqyada u dhoofsha oo aan dhimashadoodii ka naxin ilaa mudalin waxa arkaysaa qofka ilmaha qalanaya ee kaliya kala baxayay waa qof aan u naxaynin ilmaha because ma dhalin asagu hadduu dhalin lahaa uu naxaa baan isleeyahay laakiin oo ilmihiisi wax laga yaabo inuu ilmo ku korsanayo ilmaha ilmihiisi kaliyihiisi inuu ilmo kala korsanayo waa laga yaabaa marka waa mid kamid ah dhalilaha iyo dhibaatada Soomaalida haysata waxa kale oo ma taqaana aad iyo aad ii soo jiitay qaybaha ugu dambeeya gabayga wuxuu ka warramayaa annaga ku wada faaleen karin gabayga dhaqanka baadiyaha ka jira iyo dhibaatooyin fara badan oo lagu hayo waliba xuquuqda bini'aadanka markaan gabaygaan tiriyay gabadha baan waxay dhaheen xuquuqda dumarka aad ma taqaana ugu ololeysa macnaha waxaa arkaysaa meelo badan oo kamid ah dhibaatooyinka dumarka khaasatan haya dadka hormada haysta laakiin dumarka taabanaya gabar yar oo waxaa arkaysaa 15 sano jirto oo inta dhaan loo dhibay odaga magaalada ku harayo oo sheeko u harayo oo hadirtay ka dhaliya cid ma taqaana dhamacdii iyo ma taqaana dhalnoolkii kuleelkii cid u dheelatiraysa aan la arag runtii intaadan ku soo gudbinin waxa sharaxaad ka bixisaa dadkana daawanaya inteena badan qurbaanka u soo gudbin wax laga yaabaa dhaan iyo inaan si fiican u wada gareenin runtii dhaan waxa waaye markii dadka baadiyaha jooga aw beerartaan ama ratibay rartaan way baxaan ka bacdi odagii markuu ratigi wixii la raro gabadhu u dhiibaa wuxuu dhahaa aabe ciddii siige asagana wuxuu ku haraa tuulada ama jaad buu cunaa ama waxyaalaha ciyaarahan kaleeto dadku ay ciyaaraan buu ciyaaraa sida dubnada turubka iyo waxaas wixii lamid ah dhicitaanka ama dheeligana waxa waaye ratigii ayaa rarkiisa haraa way dhacahaya gees ayuu dhacahaya ama gees ayuu badanaya adoo sii wata raallahu ha maasha Allah marka walaal waxa weeyaan tusaale ahaan ratigaas gabadhaas ka dheeliyay oo caynkii inta u furtay dhinac kale u wareegay wax u dheelitirahaya ama la cilinayo ratigii la saaraya alaabtii ma laha inay iska oydo ma taqaan ratigina oo cayn ku baqtiyo oo xarigii ku baqtiyana waa macquul aabihiina waxba kama oga marka adigu ma waxa wadan lahayd dhibaatadaas ka jirta mise Soomaaliya ku matalaysa iyo dhibaatadaas labadaba sotaan su'aalaha meeshaan ka wato gabayga wuxuu ku saabsan yahay ama uu ka turjumaya waa dhibka Soomaalida haysta way ma aha waxani waa iska tusaale way laakiin dhaankani waxaan ku matalay Soomaaliya dadka gabadha yartahay loo dhibana waxaan ku matalay shacabkii dhibaataysnaa ratiga odaga ka harayay magaalada ku harayay waxaan ku matalay siyaasiyiintii Soomaaliyeed oo ayagu hawl kale ku mashquulsan meesha dadka ay dhibaataysan yihiin marka gabaygu waa gabay sarbeeba hoosaas ka saabsan way waa tahay haddaanu ka gudubno bal gabaygaani ama intaan ka gudbinin ba su'aalka hadaan ka weydiiyo haddaan qaldanayn gabayga intii ugu dambeysay ama wuxuu ugu dambeysay waxa tiri anoo dhameystiri karinin saas dhinacyo ii laaban gabaygu waa furan yahay miya oo abwaana ka soo qayb qaadan doona maadaa dhameystiri doona ilaa ma dhameystiriyaa tira dartaan runtii horta waad ku mahadsantahay su'aashaas waxa weeye gabaygu wuxuu ka koobnaa 114 bayd 114 kaas tudcood oo iswata halkan waxaan ku tirinaa hadda saan filahayo haddaan khaldanayn 53 kamid ah halkaas marka waxaad ka arkaysaa in gabay qaybta kale ay dhaman tahay oo qaybtana qaybtii koobaad ay tahay dabcan waxay la tahay Soomaalida waxa u furan aday ka soo jawaabaan su'aalahaas ayaga iyo dhibaatada haysata gabayga uu soo galaysaa way u furan tahay halkaas waa laga dheehan karayaa qof sama sii wadi karaa gabayga gabayga qaybta ka dhimana wayba already way diyaarsan tahay oo hadda waxa loo baahan yahay in la soo dhameystiro oo saas kale intaan chance ugu helno aan qaybta kale dhameystirno inkastoo dhibka Soomaalida uusan dhamaanaynin ilaa Soomaalida dhibka Soomaalida haysta uu ka dhamaado gabaygan dhaleed uu soconaya laakiin inaan inta qaybta kale la duubno oo fursad helnaan rajeynaa insha Allah aan ka gudbo gabaygan dhaliil runtii gabay aad u qiimo badan waaye waana gabay xusid iyo taariikhba mudan gabayada la xiriira gabaygaani maadaama barnaamijkana maanta kaga hadlayna gabayga aan ku soo qaadanayna uu yahay suugaanta sabanka iyo Soomaalida maanta
bal suugaantii horeeto markii laga soo tago da-yartaan ama adigoo kaleeto gabayada ay tiriyeen bal suugaantii horeeto iyo soomaalida maanta iyo dhibaatada maanta see u xiriiraan maxay meesha ay ka wada xiriiraan maxay adiga abwaan ahaan horta waqti aan u malaynahayo dawladdii Soomaaliya inay jirtay oo wadanku xasiloonaa ayaa Allah u naxariistay abwaankii Soomaaliyeed Yamim Xirsiyaad ayaa wuxuu tiriyay gabay aad u dheer gabaygaas oo ay dhextaal u ahayd labadaasna midga dhadhacsho run dhageysaa la yiraahdaa marka gabaygaas waxa ka mid ahayd marka wuxuu yiri nin gurani hal u dheelmay dhabiga saaray dhanna uma fiyo baa la yiri dhiga baxay Soomaalida waxa weeyaan dhin saaka la oran karo waa loo baxsanaya iyo dhinacaas oran karta saaka dhinacaas fiyo lama arko hadaad istiraahdo waxa loo baxsanaya siyaasiyiintii iyo madaxdii dalka wax ka soo ahaan jiray ayagii baa mataqaana loo dawarayaayo qaarkood mataqaana danaysanayo ku danaysanaya Soomaalidii oo mataqaana wada kursi ku raadsanaya dadkii Soomaaliyeed dhibaatadooda dhiigoodii haddana waxa loo baxsan lahaa dad odayaal iyo cuqaal wixii burbur ka dambeeyay oday warkiisa waa la laabayo cidba ma dhageysataba ninkii qori lahaa maanta oday ah haddii la oran lahaa waxa loo baxsanaya suugaantii iyo abwaanadiina hadda ninkii dhaha gabay wax ku tiirinayaa shan xabaa lagu dhufanaya baa leeyahay nin walba naftiisa u yaabo haddii la dhaho wadaado iyo diin baa loo baxsanayaana walaa waxay tiri baa la waraadhaha qayla yeerto wax masaajidka nagu carajiyo qofta masaajidka qayladu ka yeeraysa hadda waxa la isku soo galay diintiyo masaajidii baa qayladu ka yeeraysa ka onkadaysa marka dhinac wuxuu ka warramaya waqtigaas asaga oo dawladda Soomaaliya ay dhisnayd wuxuu ka warramay dhibka Soomaalida haysta iyo in aan mataqaana Soomaalida ay dhibaataysan tahay hadduu maanta joogi lahaa wax kale oo oran lahaa baan filaya isagoo in kasto burburkii wax badan ka soo gaaray Allah u naxariistay abwaanku haddana wuxuu ka faaleeyay dhibkii Soomaalida waqtigaas haystay maanta isa ka daran tahay waa ka daro dibidhal haddii aan sii faaleeyo waxa weeyaan gabayagi duqii maasayahanada Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo runtii aan aad u jecelahay siiqdiisa iyo gabaygii qaabkii uu gabayga u soo gudbin jiray ayaa horaantii qarnigii 19aad markii uu markuu bilaabayay ololihiisii gumaysidiidka ahaa ayuu wuxuu tiriyay gabay aad u dheer oo uu ku tusaalanaya Soomaalida dalka in ayagu leeyihiin ayna ka ceshadaan cadawga ku soo duulay ayna dawlad u noqdaan gabayga maxaa ka mid ah wuxuu yiri marka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waa ka dareersaday kufrigu diraaciyadiinii waa ka diyaarugu laqinay diinta gaaladaaye waa ka dagaagii xeryaad dayran loo dhigay dubaaqiina waa xasaa u galay daara dhuuxsadaaye dabci been dariiqii rasuulkiina waa daba martayseene dabci beena weeyaan waxaad nagu dayaysaan dirhamkuu idin qubaa hayaa dib u go-aysaane marka hore dalkuu idinku oran duunya dhaafsadaaye markaa xiga dabkuu idinka dhigi dumar sidiisii markaa xiga dabkuu idinka dhigi dumar sidiisii markaa xigana daaba qaada wuu idin dareensiine markaa xiga dushuu idinka raraan sidaa dameeraayen